لكم ملاذها وحشا أن تدردوا طفيلي. naxariisi janno allah ka waraabiye waxaa maanta munaasabad lagu soo gebagabeynayey tacsiyadii sheekh maxamuud axmed xareed lagu qabtay zaawiyada jamaacatu nuur ee xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley. agaasimka iyo abaabulka munaasabadda waxaa iska lahaa sayidil murabbi sheekhu shareecatul muxamadiya sheekh cabdinuur sheekh cabdulaahi sheekh maxamed iyo axbaabtiisa. munaasabadda gebagabada tacsiyada sheekh maxamed waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee culmaa diinka ahlu sunna wal jamaaca ahlu dhuruq suufiya ayagoo isaga kala yimid 42 county ee dalkani Kenya uu ku kooban yahay iyo qaar ka mid ah dalalka dariska la Kenya. waxaana halkaas lagu oogay dikriga qaybihiisa kala duwan sida weysiyada zaylaca iyo aala ahmed labadooda qaybood.
كيجس maanta waxaad moodaa alxamdulillahi rabbil caalamiin maalmihii ziyaarooyinkii waaweynaa ee la dhigi jiray oo kale ayaad moodaa sidii maalmihii ziyaaradii biyooli oo kale la isugu imaan jiray iyo basra iyo beledul kariim iyo misra iyo oo kale aad moodaa maanta maalmihii la isugu imaanayay waxyaalaha ka shabahda waxaa ka mid ah ziyaarooyinkaas la isugu iman jiray waxay ahaayeen ziyaarooyin ruuxi ay ahaayeen ma ahayn ziyaarooyin maadiya ziyaarada maadiga macnaheedu waxa weeye ziyaarooyin dadka inta lacag la siiyo baabuur loo kireeyo la keeno ma ahayn ziyaarooyinkaas waxay ziyaaro qof walbaaba asagu iskiisa isu soo kharash garan jiray iskiisa isu soo maamuli jiray iskiisa u imaanayay ay ruuxdu hagaysa oo kale ay ahayd maanta sheekh maxamuud tiibuu na xasuusiyey sheekhaan maanta isugu nimid sagootinayno sheekh maxamuud axmed xareed allah ka raali noqdo daacadnimadii uu dariiqada u hayay iyo wardigiisii uu wardin jiray ee ikhlaaska ahaa ayay ka turjumaysaa tan in annaga oo aan is aqoon annagoo aan isgaranayn nin walbaaba iskiis uu isu soo maamulo inuu maanta ka qayb qaato sagootinta uu ka qayb qaato sheekha la sagootinayo gabagabada tacsidiisii inuu ka qayb qaato wa maca daalika asagoo qariib ahaa haddana haddii uu magaalada deganaan lahaa oo sheekh la yaqaano uu ahaan lahaa mawlacyo uu ku lahaan lahaa masaajido uu ku lahaan lahaa madarasooyin uu ku lahaan lahaa waxaa la dhihi lahaa nin sheekho macruuf loo yimid ayuu ahaan lahaa laakiin nin magaalada markii uu soo galay saacado unbuu joogayba saacado waxaan u malaynayaa 6 saac ma dhammayn baa u malayn soomaa sheekh 6 saacadood adii 5 saac ilaa 6 saac ayuu joogayba haddii la yidhaahdo waddanka dhan ee gobolka isla markiina geeridii baa haleeshay alxamdulillahi rabbil caalamiin tan waxay ka turjumaysaa marka raalli ahaanshaha ilaahay uu ka raali noqday raalli ahaanshaha ay saadaadkiisii ka raali noqdeen raalli ahaanshaha insha allah biidnaa kariim ehelulahay dhan ay ka raali noqdeen ayay tarjumaysaa waxaan isu dardaarmaynaa ikhwaani fillaah waxaa weeye taqwada weeye waxaan isu dardaarmaynaa taqwa weeye maxaa yeele meeshaan taagannahay waa geeri habeenkii dhoweyd maqribkii baan wada tukanay salaaddii maqribka ayaan wada tukanay cishaaga intaan la gaarinna meydkiisaa naloo keenay intaas ayay noo jirtaa xisaabtu meelba ma jirto waxa lala kibrayo waxa lala isla weynaynayo waxa maaragtay la raadinayo waxa weeye waa waxaan la helayn waa ikhwaani fillaah ilaahay aanu ka cabsanno geeridan aanu xasuusanno tanna aanu ku wacdi qaadanno mawtul fajahan aan ku wacdi qaadanno sheekhaasi dan buu u yimid muraad buu lahaa reerkiisii buu ka yimid halkaan buu soo gaaray dana yar buu soo gaaray aad noqotid buu lahaa ballamuu lahaa waa laga dhex saaray ilaahay idinkii marka asagana allah u naxariisto qabriga allah waasiciyo insha allah waxaan kaloo isu dardaarmaynaa waxaa weeye sidan hadda aanu isugu nimid xilqooyinkii la yaqaanay dhammaantood ay isugu yimaadeen شيخ كلمتي سانو فلان فضيلة مولانا السيد الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن وانو فلان تهي شيخ ديرشه كلمتي سا ان شاء الله ولي الله شيخ ديرشه ولي المؤمنين ارحم ولي الله شيخ ديرشه مركا waxaanu u faataxaynayna faataxa u marayna marxuum hadda geeriyooday oo dariiqada kamida magaalada Nairobi ku geeriyooday oo la yiraahdo xaaji jaamac بأنه فاتحة أمرنا وهذا الله أفصدي إن شاء الله الفاتحة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغربك مساجد كان كنت كنينا هدي إلهي راد وأنا لو أقدم يا هضب مؤذن كهسو استاغش عبدي وأنا لو أقدم يا بعد الأذان مساجد كان كنت كنينا مركان مسجد ككبحنا صلاتنا شيخ قبر جيسان وقلينا ودعينا أنا ووضطن هدي إلهي راد صديار ما إن شاء الله تعالى الدعاء الشيخ أنا سوي ما نسوما شيخ الدعاء جيسان وماركتك وضع جمعنا هنا رالي النقطة أنت هلا صبره haddana shariifkeena noo ducaynaya gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa guud ahaan marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda u mahad celiyey sheekh maxamed qeyb oo ku hadlayey magaca jamaacatu nuur aniga waxaan ka mid ahay talaamiidda sayidkeena weyn الداعي الكبير المربي السيد أبا عبد النور وحان لي يراها محمد خير sheekh maxamed halkaasaan gaariyar ka soo qaadanay aniga iyo 3 kale oo talaamiidda ka mid ah culimadeenna waaweyn waxaan imaanay waaga markuu bariyay 12 iyo bar adiga waa dhul loo soo soconayo ilaa 6 saac
loo soo soconayo waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu sharfay inaan ka soo qayb galno aaskii iyo duugtii sheekhayna weynaay sheekh maxamuud axmed xareed weliba waxaan aad maaragtay ilaahay ugu mahadinayaa inaan ka mid noqday dalabadii sheekhayna abisha cabdinuur oo khabriga dhigay sheekha inaan ka mid noqday ayaan maaragtay yacni aad ilaahay aan ugu mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala waqtiga ayaga ahayd isniinta laga soo bilaabo ilaa caawa waxaa si isdaba joog ah u socotay yacni xuska sheekha oo qur'aan aad u fara badan talaamiidda ay u akhriyeen culummada ay u akhriyeen tawxiid aad u fara badan loo akhriyey ikhlaas iyo wardiyaal aad u fara badan loo akhriyey sadaqaad aad u fara badan loo bixiyey ilaa galabta aynu ahayd qatinkii tacsiyada sheekheenna sheekh maxamuud galabtana waxaa ka dhacay bannaanbax aad u weyni badan ilaa caawa waxaa socdo yacni dikrigii iyo khayraadka ayaa socdo marka waxaan u mahad celinaynaa culamaa u diinka ahlusunna waljamaaca inta maaragtay meeshaan dhadhaab baa la yidhaahaa waa xeryaha qaxootiga waaye waa xagardheer iyo ifo iyo dhagaxley waxa sheekhu uu ku geeriyoodayna waa dhagaxley waaye maanta looma kala harin ilaa 3 maalmood oo tacsiyada sheekha ma loo kala harin galabtana waxaa ka dhacay ilaahay unbay maaragtay u xisaabsan tahay subxaanahu wa tacaala marka waxaan leenahay anigoo maaragtay ku hadlahayo yacni dalabada iyo jamaacada sayidkeenna weyna daaciyul kabiir asheekh abasha cabdinuur waxaan leenahay insha allahu inta nagala soo qayb gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr weyne badan allah idinku siiyo ziyaaradana insha allahu tacaala allah naga aqbalo sheekhana ilaahay ridihiisa iyo karamka ilaahay kii lagu marti qaada allah ka yeelo annaga dhammaanna dembigeenna dembi waalidkeenna allah dhaafo aad baan u mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayr maxaa yeelay wanaag ninkii sameeyo oo wanaag kuu sameeyo abaalmarkiisa waxaa waaye inaad tidhaaho ilaahay ha kaa abaalmariyay subxaanahu wa tacaala marka waxaad noo samayseen iyo sida wanaagsan oo nooga soo qayb gasheen waxaan koobi karna maaha laakiin waxaan leenahay jazaakum allahu khayr weyn allah idinku jaaziyo annagana maaragtay insha allahu tacaala bacdigiisa ilaahay nama fidneeyo dembigeenna dembi waalidkeennana allah dhaafo mashaa'ikhdeennana cizigooda sharafkooda allah kor yeelo cizigooda sharafkooda allah kor yeelo siday maaragtay yacni maanta ugu istaageen waa wax cajiib badan waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni dartiis laisku jeclaado waa wax aan maaragtay yacni ta'hiirka adduunyana ku leh aakhirana ku leh sida ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadkaani waxay ahaayeen dad ku rafiiqay ilaahay dartiisa subxaanahu wa tacaala sida maaragtay yacni sharafta badan oo loo garab istaagay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa wax la cabiri karo walaalayaal ma aha marka waxaan leenahay mashaa'ikhdaas juhdigaas iyo dadaalkaas bixiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadkooda allah badiyo cabdirasaaq kaahi miftaax galeer TV xeryaha qaxootiga dhadhaab dhagaxley Kenya